anaa kuu mahad celinaya wixii noola keenayna. isagoo ku dhex jira tartan adag oo ka dhacay TikTok ayuu ka dhex sheegay inuu kaalmo gaarsiin doono dadka abaaruhu ay saameeyeen ee ku nool gobolka Gado. waxaan ka hadlayo waa Kabtan Ayuub Cabdirasaaq oo ka mid ah shakhsiyaadka caanka ka baraha bulshada oo maanta ku dhawaad 50 qoys oo ku xoolo beelay abaarta ka jirta gobolka Gado gaarsiiyay gargaar isugu jira raashin qaybin iyo biyo dhaamin. afayeenka maamulka gobolka Gado Cali Juba oo ka hadlay halkii gurmadka loogu sameeyay dadka ku xoolo beelay abaartii ku dhufatay gobolka Gado ayaa si weyn ugu mahad celiyay Kabtan Ayuub isagoo ku amaanay kelmadiisa oo ku soo aaday xilli xaalad adag ay ka jirto gobolka. Kabtan Ayuub wuxuu soo dhiibtay dadkii uu soo dhiibay oo ugu talagalay ayaa la gaarsiinaya. Kabtan Ayuub kaalin weyn ayuu ka qaatay gargaarka gobolka Gado awalan. Kabtan Ayuub wuxuu la qaybsaday kuleylka gobolka Gado ka jiro. Kabtan Ayuub wuxuu la qaybsaday kurbada shacabka naga dhibaataysanaysa. Kabtan Ayuub wuxuu noqday nin nakabay oo kaalin muhiim ah noo galay. Kabtan Ayuub waxaan xasuusnaan doonaa maanta baahidana hayso shacabka naga dhibka haysto qaybta uu ka qaatay waxaana u sameyn doonaa wax aan ugu abaalgudi doono insha Allah maalinkan abaarta ka baxan. waxaan codsanaynaa dadka social media ka shaqeeya ee dhalinyarada ee wanaagsan ee dadkooda u naxayo waxooda Ilaahay siiyay iyo xoolahooda inay sidaan kale oo la baxaan oo wax kala baxaan oo Soomaalida iyo dadka dhiban ee gobolka Gado ee maanta dhamaanayo waxaa jirto hadaan idin sheego 3 wiil oo isla dhalatay in ceel meesha la yiraahdo Yurkud u dhow ay biyo u doonteen ay hooyadood ceelka asaga ah biir ayuu noqday biyihiisa ka dhamaaday way ku sumoobeen 3 meesha ku dhinteen hooyadoodna waa dul taaganta meeshii ku weynaysa gobolka Gado meel walba ka mid ah dhibaatadaas ka taagan waxaa jira dadka reetooyin ayagoo lagu wado oo la moodahay inay nool yihiin markii la furay oo la yiraahdo la dajiyo ayagoo meyd alla arkay gobolka Gado ka dhacay waxaad ogtihiin inay isbaaran oo dhigteen nimanka Kismaayo joogo wax allaale wixii dadka loo gargaar la yiraahdo waxay leeyihiin Kismaayo la soo maray. Kabtan Ayuub wuxuu yiri ana cid aan marinayo ma jirto Kismaayo wax ma marinayo wixii toos ayay noo soo gaareen war qofkii waxna siinahayo Kismaayo isbaarada taal waxba noo soo marin waaya dalaal iyo malaal wixii loo dhiibay ayaga ka soo dhamaaneen waxay la mid tahay islaantii hilibka lafta intay qaadatay ma taqaanaaye lafta eberka inta yar ku jirta ka goosatay gabadhana u dhiibtay gabadha markay goosatayna tukaa ay u tuurtay oo tukuhu yiri maxaan ka cunaa annaga wax Kismaayo ka yimid ma tukaa annaga namoodeen war waxaana Kismaayo ka yimid nama soo madaxa arrimaha bulshada maamulka magaalada Garbaharey iyo qaar ka mid ah dhalinyarada Garbaharey oo dhankooda u mahad celiyay Kabtan Ayuub iyagoo dhinaca kale ugu baaqay cid walba oo waxaysata inay ka qayb qaataan gurmadka abaaraha jacayl in uu dadka Soomaaliyeed nolol fiican helo oo ku noolaado jacayl in uu dawladnimo wanaagsan dhalato ninkaas oo aad iyo aad u garanayna bulshadana ay wada garanayaan Garbahareyna aad caan uga ah aad baan ugu mahad celinaynaa walaal waad aragtaa dadku waa gaarsiinay sadaqadii dhammaan way ku mahad celinayaan annagoo maamulka oo ku mahad celinaynaa degmada Garbaharey oo dhan baa lagaaga mahad celinayaa inta ku daawan doonta ayaguna way ku mahad celin doonaan waxaan leeyahay ninka lagu daydo dadka saas loo soo caawiyo si bareeda man raxiim magacayga waa Nasr Sanbuur maanta waxaan joognaa magaalada Garbaharey duuleedkeeda annagoo dhalinyaro oo u soo gurmanay dadkii ka soo barakacay degmada agaarka degmada Garbaharey waxaan maanta soo gaarsiinay biyo dhaamis iyo raashin cunto oo iskugu jirto bur iyo bariis sokor iyo Soomaaliya meel walba abaar ka jirto ku dhibaataysan sidaan anaga noo soo gaarsiiyo meel kale oo far badan aan ognahay inuu deeqo kale u gaarsiinayo Kabtan Ayuub waxaa leenahay shacabka degmada Garbaharey guudaan gobolka Gado abaal weyn bay kaaga hayaan kaalmadan soo gaarsiisay abaal weyn baana kaaga helnaa waana lagu xasuusan doonaa waxa kale oo rabaa inaan sidoo kale u mahad celiyo walaal kale oo asagana ku nool dalka UK ariga Ingiriiska oo la yiraahdo Maxamed Cabdi oo asagana kaalmadan waa ma dhacdo ama waa dhifiye naadir in kuweena caanka codkoodu uu gaaro ceel dheer ay calafkooda iyo codkooda ugu gurmadaan dadkeena Soomaaliyeed ee ku xoolo beelay abaaraha saameeyay dadka iyo dunyada ee ku dhuftay dalkeena waa kuwan qaar ka mid ah dadkii ka faa'iideystay gargaarkan oo ka sheekaynayo sida ay abaaruhu u saameeyeen iyagoo cid walba ka codsaday in gurmad sidaan oo kale ay u sameeyaan qodaya magaca dadweynaha oo baraka uga soo imaaday meeshii leeyahay baadiya xooli waxna baabay waxna il dareeyeen
kabtan Ayuub wixii aad noo soo dirtay oo biyo iyo raashin ah wayna soo gaareen waad ku mahadsan tahay kuwa ayaga waa dabshide waxaan u baahanahay wax ka siyaada oo gogol oo ilaa ninkiis kabtan Ayuub ana ku mahad celinaya wixii noola keenayna aan kuugu mahad celinayna abaar baan haysta meesha aan ka imaanay xoolihina way naga dhamaadeen wixii aan soo wadanay way naga dhamaadeen waxba ma haysana wixii aad nasiiseen anako in kuugu mahad celinayna adinkana aad mahadsantihiin abaar baan haysta hooy ma haysana duur oo waxaan tuurinahay maxay ahayd qorrax baan tuurinahay wixii hadda maanta meeshaan ugu imaanay wax ka horeysa ma haysana meesha aan hadda joogno biyo kuma haysana baad kuma haysana qorrax baan joognaa hooy in nala deeqdan oo isugu jira raashin isugu jira bur bariis sonkor iyo saliid iyo sidoo kale biyo dhaamin halkan laga sameeyay uu soo dhiibay walaal Soomaaliyeed wariye caana oo lagu magacaabo kabtan Ayuub ayaa ku soo aadayso xilli abaar baahsan ay ka jirtay gobolka Gado dad fara badan oo ka imaanaya dhinaca miyiga oo xoolihii ay ka soo dhamaadeen ay magaalada soo galayaan Mawlid Jaamac Faarax Mawlid Galwaaq warbaahinta Shabeelle magaalada Garbaharey ee xarunta gobolka Gado si aad ugu adeegato Premier Wallet kaliya taabo batanka Pay ku aadi kaamirada QR-ka goobta aad wax ka iibsanayso gali lacagta iyo faahfaahin kooban taabo Next kadibna Confirm ugu dambeyntiina gali MPin-kaaga si aad u dhamayso iibsashada Premier Wallet waa habka ugu casrisan ee aad ku adeegan karto maalin kasta